aad u mahadsantii runtii dood cilmiyeed aad u qiimo badan oo qof kasta doorkiisa ka qaato waaye waxaan rabaa inaan waqtiga soo koobo oo su'aalahayga aan galo runtii markii hore waa anigii ka bilaabay xaquuqay leeyihiin walaalaheen of course aniga hadday tahay yes wax kastana waxay leeyihiin meel ay ka bilowdaan kuna dhamaadaan su'aalaha inta badan aad ay ii taabteen abaayo markay hadlaysay wiilasha intaba waxaan u malaynaa labada wiil aniga su'aalay weydiiyey oo mataqaanaa waana uga jawaabaya aniga specifically markastaba as a point dadka oo naafada ah waxaan aaminsanahay inay mararka qaar ay si smart uga fakaraan dadka kale intaysa fakarin ay ka fakar badan yihiin kana dadaal badan yihiin waana qiraaya taas ta kale waa run dayac wuu jira iyo isku xirnaan la'aan laakiin waxaan rajaynaynaa inaan anaga laftirkeena aan u soo jeesano ilaahay hadduu ka raali noqdo ka istaad ahaan barnaamijkan runtii platformkan haddaan la helin oo laisku wareysan xog badanna lama heli karo wax badanna lama ogaan karo statekayga markii su-aasha liga weydiiyey aadaan ugu baraarugsannahay walow hadda aan dowladeennan hadda ay cusub tahay tii horena ay mataqaanaa waqti iska ahayd waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan anagana schedule-keena ku darsano waxna aan ka qabano taas hadalkii ahaa waxaan jeclahay inaan intaas aan ku koobo haddii Ilaahay yiraahdo waa dareemaya waxaad dareemaysiin anaga laftirkeena waxaan diyaar u nahay maadaama aan ka dhawaajiseen inaan ka nimaano qurbaha muhiimadna linka siin jiray inaan meelaha oo la isugu imaado ama xuquuqdiina human rights-ka lagu raadinayo inaan qayb ka noqono gacanna aan ka geysano moogtahay hadalka inuu sii bato waxaa ka fiican baahida hadalka in la abaaro aniga am ready inaan statekaasna in kala qabto meeshii wax lagu qabanayo liiga wacana inaan garab istaago adinkana waxaa laydinka rabaa united inaad noqotiin guddoomiye samaysatiin muuqataan hadashaan soomaalida waxay ku mahmaadaa cunuga hadduusa hadlin hooyadiis xataa way qadisaa haddii aan codkiina la maqlin ama aadna hadalkiina la maqlin dadkii saa sheegteen xoogga lahaa ayaa isku haysta marka aniga talada aan ku darsanayo waxay tahay inaad dadaalka badisaan xiriirkana oo xiriir ka fiicnaado sababta xiriirkaana keenay inaan wada hadalno aniga iyo adinka isbarano marka taasaan xoojinaya in oo mataqaanaa dadaalkaas la joogteeyo anagana go'ayn garab taagannahay haddii Ilaahay yiraahdo dhinaca kale oo arrimaha doorashada oo i weydiiyey doorashada hadda jirta waa ogtahay very maxaa la yiraahdaa critical waa laga hadlay dad badan ka hadlay ani waxaan rabaa inaan su'aashii specifically aan u gudbo ahayd gudiyadaas doorasho xalaal inay dhacdo of course gudiyo aan ku kalsoonahay aan soo dirsanay maxaa la dhahay state kasta laba qof uu ku darsado wasiir aan ku kalsoonahay oo state-ku soo xushay aan ku darsanay heshiiskii oo baydhabo 16 February bay qayb ka ahaayeen waana rajaynaynaa heshiiskaas inuu noqdo heshiis taabagala Soomaaliyana wax weyn u qabta waana si taxadar lahaan aan insha Allah aan isha kulli loogu wada hayaa laakiin ka state ahaan dad aan ku kalsoonaan ku darsanno waxaana ka rajaynaynaa positive way inuu ka imaado haddii Ilaahay ka raali aad u mahadsantiin aad ay u mahadsan tahay Ifraax Umar Salaad wasiir dowladda madaxtooyada Hirshabelle